السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo barashadeeni luqadda Dutch-ka ama luqadda Jarmalka sida ay Soomaalidu u yaqaaniin waxa casharka maanta idinla wadaagaya anigoo Axmed Maxamuud casharkeenu maanta qaadanayna wuxuu ku saabsan yahay cabasho ama waxaanu qaadan doonaa ereyada Jarmalka ah ee ku saabsan ama loo isticmaalo afka Soomaaliga cabasho waxaanu keeni doonaa ereyga macnihiisa Soomaaliga ah sidaynu horeba u samayn jirnay jumlo tusaale ah si fahamku inuu ku fududaado waxaan rabaa inteena casharka guda gelin inaan saddex arrimood baraarujiyo dabcan markastana waan baraarujinaa arrinta koowaad ardayda casharka ka raacda buugga umfangreekh Dutch und Somalisch hadday yihiin ardayda nagaga xiran dhinaca website-ka iyo hadday tahay ardayda YouTube-ka ama Facebook nagaga xiran kelmadahan bogagga aad ka heli kartaan inaan marka hore baraarujino tusaale ahaan kelmadda klagen waxaad ka heli kartaa bogga 223 sidoo kale kelmadda makerin waxaad ka heli kartaa 257 sidoo kale kelmadda beschweren waxaad ka heli kartaa bogga 103 sidoo kale kelmadda beklagen waxaad ka heli kartaa bogga 114 bogaggaas ayaad ka heli kartaan waa ardayda buugga haysta ardayda aan buugga haysan ama dadka aan buugga haysan doonaya ama danaynaya casharkan inay fahmaanin waxaan ka codsanaynaa inaad casharka istaajisid kabacdina buug iyo qalin soo qaadatid casharka qoratid maqal iyo muuqaal waxba laguma barto ama dhegeysi waxba laguma barto waxaad u baahan tahay inaad casharkii qoratid xifdidid practical ku samaysid theory ahaan iyo practical ahaanba inaad u baratid soo haddaadan buugga haysan casharka istaaji buug iyo qalin soo qaado qoro kelmadda jumlada iyo macnaheeda Soomaaliga intaba sidoo kale waxaan rabaa inaan baraarujiyo markastana dabcan waan baraarujinaa kelmad kasta oo aan halkan ku keeno macnaheedana cabasho ku soo koobno in ay yeelan karto ama loo isticmaali karo macna ka duwan kan oo aan ahayn cabasho laakiin annaga maanta ma geli doono macnayaashaasi sababtoo ah waxaynu ku soo koobsanaynaa macnaha casharkeena la xiriira ardayda haysta buugga dabcan buugga ayaad ka heli kartaan inta macno ay kelmaddaas u qaadato sidoo kale ardayda nagaga xiran dhinaca website-ka wixii su-aala waxaad noogu soo diri kartaan in qaybta chatinka iyo sidoo kale qaybta felderka ee markasta wax noogu soo qortaanin haddii aad rabtaan waxaad tegi kartaan qaybta contactiga email ayaad noo soo diri kartaan waxaynu guda gelaynaa casharkeenna kelmadda ugu horeysa klagen cabasho ama ka cabasho qof cabanaya oo wuxuun ka cabanaya cabasho yani qof wax ka cabanaya qof wax uun dhibsaday dabeedna ka cabanaya cabasho saas ayaa loo isticmaalaa hebel waxaas ayuu ka cabanaya tusaale ahaan jumlada aynu gelinay klagt über Schmerzen in den Knie klagt über Schmerzen in den Knie wuxuu ka cabanayaa jilba xanuun in den Knie waa jilbo weeyaan Knie waa jilbo ama waa ruugag ninba siduu u yaqaano waxaan rabaa inaan baraarujiyo kelmadda Knie markii ay tahay mufrad markay tahay articalkeedu waa das laakiin markii ay jamac tahay ama jumlo markay tahay oo laga hadlayo rugaga ama jilbaha laga hadlayo waa d articalkeedu marka inden waxaynu usoo qaadanay oo aynu articalku isu bedelay waa propositionka in oo aynu wadano iyo tan ina hor taallo ah in aynu jumlo yani jamac inaynu ka wadno kini oo inaan ka wadanin das ka wadanin yani inaan ka wadanin mufrad haddii mufrad noqon lahayd waxaynu oran lahayn indem kini ereyo badan wax jira luqadda Jarmalka aan isbedelinin iyaga qoraalkoodu markay jamac yihiin iyo markay yihiin mufrad laakiin waxa lagu garto uu yahay articalku uu ku sheegayo haddaba waxa laga hadlayaa jamac miya mise waa mufrad marka kini waxay ka mid tahay ereyadaas isma bedesho waxay noqonaysaa di kini ama das kini laakiin iyadu isma bedelayso kaliya articalka ayaa isbedelaya sidaynu haddaba u jeedno kelmadda labaad makerin waxa weeyaan cabasho meckert immer über die Arbeit markasta wuxuu ka cabanayaa shaqada ayuu markasta ka cabanaya waa qof markasta shaqada ka cabanaya yaman waxa weeyaan cabasho sidoo kale die Leute jammert über die Wartezeit dadku waxay ka cabanayaan waqtiga sugitaanka beschweren cabasho beschwert sich über die
Zähigkeit des Fleisches. Beschwert sich über die Zähigkeit des Fleisches. wuxuu ka cabanayaa adayga hilibka. Zähigkeit waa adayg. weliba waxaa loo isticmaalaa hilibka iyo waxyaabaha la midka ah ayaa loo isticmaalaa. yacni looma isticmaalo waxyaabahan iska caadiga ah laakiin cuntada ayaa inta badan zähigkeit loo isticmaalaa weliba hilibka markuu adag yahay. ma oran kartid hilibku hard wey ma oran kartid laakiin waxaad oran kartaa Zähigkeit. beschwert sich wuxuu ka cabanayaa ibana waa Präposition über die Zähigkeit des Fleisches wuxuu ka cabanayaa adayga hilibka. hilibkan wuu adag yahay buu leeyahay lama cuni karayo. beklagen cabasho die Leute die gerade in Somalia befinden beklagen sich über das Inflationskreis. Die Leute die gerade in Somalia befinden beklagen sich über das Inflationskrise. dadka Soomaaliya jooga waxay ka cabanayaan dadka hadda Soomaaliya jooga waxay ka cabanayaan in dhibaatada sicir bararka. dadka hadda Soomaaliya jooga waxay ka cabanayaan dhibaatada sicir bararka. Die Leute dadka hadda Soomaaliya jooga die Leute die gerade in Somalia befinden dadka hadda Soomaaliya jooga gerade waa jetzt waa hadda dadka hadda Soomaaliya jooga beklagen sich über das Inflationskrise. inflationis waxa weeyaan sicir barar, krisena dhibaato ama xiisad ayaa loo isticmaalaa. marka jumladan hadda waa dhibaato maadaama inflationis ku ladhnay macnaheedu muxuu noqday inflationis krise dhibaatada sicir bararka. dadka hadda Soomaaliya jooga waxay ka cabanayaan dhibaatada sicir bararka. inta ayaynu maanta casharkeena ku joojinaynaa intaynu casharkeena ku xiga isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi